ku bilaabay wararka waa 20ka bisha koowaad 2019 wararkii oo dhan wararkii dhawaan ka dhacay dhismaha ku yaala magaalada Nairobi ayaa dhaliyay su'aalo badan oo ku aadan in Kenya iyo casharo ay ka baratay weerarkii argagixiso ee hore uga dhacay dalkeeda kuwaas oo kamid ahaa weerarkii ka dhacay sanadkii 2013 xarun laga dukumaysto ee Westgate ee ku taala galbeedka magaalada Nairobi maalmahan dambe ayaa waxa la arkayay iyadoo gawaarida la sheegayo in markaasi la baarayo isla markaana la sheegayo in shakhsiyaad si gaar ah iyagu uga shaqeeyo goobahaasi in ay ka shaqeynayaan sidii ay u sugi lahaayeen amniga isla markaana ay u baari lahaayeen dadka iyagu markaasi galaya goobaha ganacsiga iyo waliba dhismooyinka kaleba gawaarida iyo waliba dadka ayaa waxa ay markaasi ay dhaxmarayaan mashiimaha waxyaabaha qatarta soo saara kuwaas oo la leeyahay waxa ay markaasi ka hortagi karayaan qatar kasta oo iman karaysa gariiqaanka maxkamadda racfaanka dalka Maxamed Warsame ayaa loo dhaarin doonaa xibin inuu ka noqdo golaha garsoorka qaranka oo markii magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano JSC kadib markii ay maxkamadda sare sheegtay inuusan u baahnayn in baarlamaanku ay baaritaan mariyaan gariiqaan Chaka Mwita ayaa sheegay in madaxweynuhu sharciga jabiyay kadib markii uusan magacaabin Warsame oo uu sheegay inuu golaha garsoorka ay doorteen Warsame arrinkaasna uu sheegay inay ka codsanayaan madaxa garsoorka inuu u fududeeyo dawladda ayaa waxay wax ka qabanaysaa caqabadihii ka jiray dugsiyada sare gaar ahaan dhismayaasha carruurta ay wax ku bartaan taasi oo markeedii hore ay dib kala kulmi jireen ardadu markii loo eego goobaha ay wax ku bartaan oo cariri ahaa wasiiradda waxbarashada Aamino Maxamed ayaa sheegtay in ay ka heshay qasanajiga dawladda lacag dhan 1.5 bilyan oo ay lacagtaasi inteeda badan aadi doonto dhammaan dugsiyada sare horumarintooda waxayna intaasi ku dartay in lacagtan in qaybta ugu badan ay aadi doonto kountiyada iyo subkountiyada oo arrintaasi ay aad u saameysay gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Cabdiraxmaan oo uu heliyo madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan gaar ah la qaatay guddi ka socda golaha odayaasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed kulankan waxaa looga hadlayay sidii loo wajihi lahaa hawlaha dib u heshiisiinta ee maamulka cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo halkaasi ka wado odayaasha ayaa waxa ay warbixin kooban ka siiyeen madaxweynaha iyo gudoomiyaha halka ay marayso hawlaha dib u heshiisiinta ee ka socda maamulka Koonfur Galbeed dhinaca kale madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa uga mahad celiyay odayaasha qaybta weyn oo ay ka qaadanayaan hawlaha ay halkaasi ka wadaan ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka ayaa u mahad celiyay odayaasha dhaqanka iyo guud ahaan bulshada deegaanka waxaana kula dardaarmay inay wax ka bedelka iyo horumarinta ay halkaasi ka hayaan waxaana kula dardaarmay inay arrintaasi ay si dardargeliyaan si dadka halkaasi ku dhaqan ay u helaan maamul wanaagsan iyo waliba nabad waarta Abdi Malik Muuse Culdoon oo ah wariye Soomaaliyeed ayaa waxa la sheegayaa in lagu xiray degmada Gaashaamo ee ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya sida la sheegay wariyaha ayaa ma toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu ku sugnaa magaalada Jigjiga Culdoon ayaa waxa lagu yaqaanaa inuu ka hadlo tacadiyada inta badan loo geysto Soomaalida geey kasta oo ay joogaan wariyaha ayaa la sheegay in la xilay laba wariye oo kale oo ku sugnaa degmada Gaashaamo waxaana xiray booliska New Booliska oo kadib ku wareejiyay ciidamada militariga dawladda Itoobiya ilaa iyo hadda ma jiraan wax faahfaahin oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee dalka Itoobiya Culdoon ayaa hore waxa uu xiray maamulka Somaliland oo ku sheegay markaasi inuu qaranka ku xadgudubay walow markii dambe cafis loo fidiyay gaadiidka xamuulka qaada oo ku kala goosha koonfurta iyo bariga Soomaaliya ayaa waxa la sheegayaa in halkaasi lagu xanibay waqooyiga gobolka Mudug oo ay maamulaan maamulka Puntland gaadiidkan ayaa waxa la sheegay in ay xireen ciidamada ammaanka maamulka Puntland oo ka doonaya inay bixiyaan canshuur laga rabay gaadiidkaasi inay bixiyaan
qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka ayaa waxa ay sheegeen inay lagu kordhiyey lacag xaddhaaf oo aysan markaasi bixin karin kadibna ay go'aansadeen inaysan lacagtaasi bixin oo aysan halkaas ka joogaan. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka Xarfo ee Puntland ayaa sheegay in waqti kooban ay xirnaayeen gaariyaashaasi kadibna la fasaxay. Waxa uu sidoo kale beeniyey in baabuurtaasi ilaa hadda ay xaniban yihiin. Gaadiidka ayaa horey waxa ay u bixin jireen lacag $40 halka haatan lagu kordhiyey lacag $20. Cadadka lacagtaasi oo isku noqonaya $60. aqalka guurtiga Somaliland ayaa la filayaa inay maanta ku dhawaaqaan muddo kordhintii saddexaad oo loo sameeyo golaha wakiilada Somaliland muddo 14 sano ayagu halkaasi fadhiyay. golaha maanta muddada loo kordhinayo ayaa la filayay in doorashadooda ay dhacdo 29 bisha Maarch ee sanadkan, waxaana la filayaa in 6 bilood oo muddo kordhin loo sameeyo. dib u dhaca doorashooyinka aqalka wakiilada ayaa waxaa cabashooyin ka muujinayay xisbiyada siyaasadeed ee ka jira deegaanada Somaliland. xisbiyada walaaca ka muujinaya ayaa waxaa ka mid ahaa Wadani Uxidi oo sheegay in xilligan aan loo baahnayn muddo kordhin. dalka Suudaan magaalada Khartoum waxa la sheegayaa ciidamada amniga ah inay rasaas u adeegsadeen dad dibadbax ka dhigayay magaalada caasimadda tan iyo maalinnimadii Jimcihii ahayd. waxa lagu soo waramayaa dadka inay dibadbax oogayaan oo ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha muddada 29 sano dalkaasi ka talinaya Umar Hassan al-Bashir. waxay dalbanayaan in markaasi xukunka uu ka dago isla markaana isbedel siyaasadeed iyo mid dhaqaale dalkaasi oo ka hirgalo. hase ahaatee waxa la sheegayaa xiisadda ayaa aad u sii kordhaysa. madaxweynaha dalkaasi ayaa dhag jalaq u siinin baaqyada dadka uga imanaya isaga oo sheegay ku amrayna ciidamada inaysan cidina ugu aabayeelin soo celinta sharciga ee kala dambeynta ee dalkaasi Suudaan oo la sheegayo tiro dad ah in ay ku dhinteen tan iyo markii rabshadaha dalkaasi ay ka bilowdeen. tiradada ayaa lagu soo waramayaa in lagu laayahay xeebaha wadamada Mediterranean-ka oo la sheegayo in meel 190 kiiloomitir dhinaca waqooyi bari ee ka xigta Tripoli inay dooni kula qaraqbatay. dadkaas oo la sheegayo in ay kor dhaafayaan 200 iyo waliba 70 qof, iyadoo lagu soo waramayo ilaa hadda in la soo badbaadiyo dad lagu qadaray ilaa 117 qof, kuwaas oo la sheegayo in ay doontii dhinaca ula ciirtay. maxkamadda dastuuriga ee magaalada Kinshasa ee dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa waxa ay ku dhawaaqday go'aan kuna gacan saartay dacwada ka dhan ahayd natiijada doorashada madaxtinimada ee dhawaan dalkaasi ka dhacday. sida awgeedna hogaamiyaha mucaaradka Felix Tshisekedi ayaa la filayaa in loo dhaariyo xilka madaxtinimada dalkaasi. Martin Fayulu oo ah musharaxa dhinaca mucaaradka oo dacwadaasi geeyay maxkamadda isla markaana ku doodaya in wax la isdaba mariyay ayaa isagu waxa uu sheegay in go'aanka maxkamadda waxba aysan ka jirin, isagoo sheegay inuu yahay madaxweynaha sharciga ee la doortay. waxaana lagu soo waramayaa in ismariwaaga siyaasadeed dalkaasi ka taagan iyadoo ay jirto in haddana la fasaxay maanta hawada dib loo soo geliyay 20 maalmood kadib dib inay u howlgalaan markaasi adeega dhinaca internetka oo la sheegayo dib in loogu soo celiyay qaybo badan oo ka mid ah gudaha waddankaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. saldhiggii shalayto la weeraray ee Barsanguni ee gobolada Jubbooyinka ee Jubbada Hoose ayaa lagu soo waramayaa tirada dadka ku dhintay in 100 qof ay gaarayaan, iyadoo Mareykanka kaliya uu sheegay shalayto in uu duqeyn uu sameeyay uu ku dilay dad gaaraya ilaa 73 oo ka tirsan kooxaha argagixisada ee halkaasi ka dagaalama. hiirtii waa bari subaxnimadii hore ee shalay ayay ahayd markii weerar lagu ekeeyay saldhigga ciidamada militariga ay halkaasi ku leeyihiin waa kuwa daraawiishta ee Jubbaland ka socda iyo waliba kuwa iyagu dawladda Soomaaliya ka tirsan. ciidamada maamulka Jubbaland ayaa toddobaadyadani waday guluf colaadeed oo ay ku doonayeen inay ku qaadaan kooxahaasi iyagu markaasi maadashada ama weerarada ku dhufo ka dhaqaaqa meelaha qaar ka wada. madaxweynaha maamulkaasina Axmed Maxamed Islaan Madoobe ayaa xaalad dagaal kaga dhawaaqay degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose. Axmed Madoobe ayaa sheegay in dagaal ka dhana al-shabaab uu ka bilowday Jubbooyinka dhawaana laga saari doono Jubbooyinka sida hadalka uu dhigay. madaxweyne Axmed Madoobe waxa uu sheegay in shabaab ay dhamaatay waayihii ay ka talin jireen Jubbooyinka, hadda wixii ka dambeeyana in ciidamada Soomaaliya ay u diyaar garoobaan buu yiri sidii kooxaasi u saari lahaayeen.
waa markii labaad uu xaalad dagaal ku dhawaaqo madaxweynaha Jubbaland oo la arkayay isagoo dharka ciidamada intuu soo qaatay lana socda markaasi Maxamed Warsame Darwiish oo markaasi dhex socda tiro ciidamada ka mid ahna khudbad u jeedinayay magaalada Damascus ee dalka Syria ugu yaraan waxaa la sheegayaa ilaa iyo 20 qof ayaa ku dhintay weerar bambooyin loo adeegsaday oo la sheegayo in hirtii waa bari saaka lagu qaaday meel dadku ay ku aad ugu badan yihiin oo ku taala dalkaasi sida ay sheegtay wakaalada wararka ee AFP oo iska soo xiganaysa hay'adda xuquuqda bini'aadamka u dooday fadhigeedu yahay magaalada London magaalada Damascus weerarka waxa lagu qaaday goob dadku ay aad ugu badan yihiin halkaas oo la arkayay markaasi dhismayaal burburaya iyo waliba sidoo kale muraayadaha oo aad u soo daadanaya waxaa lagu qadaray dadka weerarada lagu dilay gudaha waddankaasi 360,000 oo qof oo iyagu la sheegayo qaarkood inay dhibaatooyin ka dhashay qaraxyadaasi ay ugu dhinteen qaybo badan oo ka mid ah magaalada Damascus oo la sheegayo in dhowr mar hore weerar noocan oo kala ah ay ka dhaceen hase yeeshee dawladdu waxay sheegtay inay arrimahan ay markaasi khasaaraha weyn ka yimid ay ka hortagtay xiriirka u dhaxeeya dawladda Israa'iil iyo dalka Chad ayaa maanta si rasmi ah loo soo celiyay arrintani waxay daba socotay kadib markii madaxweynaha dalka Chad Idris Deby dhawaan uu booqasho ku tagay magaalada Tel Aviv halkaas oo wadahadalo kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu arrintan waxay muujinaysaa xiriirka sii fogaanaya ee u dhaxeeya wadamada Afrika qaar ka mid ah iyo waliba dawladda waddanka Israa'iil horey waxa uu tagay magaalada Lome ee dalkaasi Togo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu isagoo wadahadalo la yeeshay Faure Grizimbendiema isagoo doonaya wadamada dhinaca ku yaala galbeed ee Afrika iyo waliba dhinaca waqooyiba in uu xiriir la yeesho dalka Chad laakiin waa dalkii kaliya ee muslim ah ee uu madaxweynahooda tan iyo muddo 76 sano laga joogo uu tago madaxweyne ka tirsan ama hogaamiye dalka Chad oo taga dalka Israa'iil wada hadal la yeesho Israa'iil waxa la sheegayaa madaxweynihii kan ka horeeyay Idris Deby ee la yiraahdo Hussein Habre oo ku xiran dalkaasi Belgiumka oo dacwado lagu soo oogay oo bini'aadanimada ka dhan ah oo laga qabtay markaasi sanadkii 2017 dawladda dalka Senegal ay u gacan gelisay maxkamadda dambiyada dagaalka oo lagu eedeynayo inuu gabadfalyo ka dambeeyay tan iyo xilligii afgembiga xilka looga tuuray sanadii 1990 wararka kale ee caalamka maanta waxa ka mid ah isku soo bax iyo ballaaran ayaa la sheegayaa inay ka soconayaan qaybo ka mid ah dalka Hindiya oo la sheegayo in ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu doonayo inuu kula hadlo xilli ay soo dhowdahay doorashada dalkaasi ka dhacda dhinaca kalena mucaaradka ayaa iyaguna malaayiin dad kula hadlay magaalada New Delhi iyo magaalooyin kale oo ka mid ah waddankaasi India iyadoo oo nin walba uu ku soo bandhigayo waxyaabaha uu doonayo in uu qabto xilliga doorashada marka la gaaro dalka Pakistan weerar ka dhacay waxa la sheegayaa inay markaasi ay keentay 4 qof oo dhimasho iyo tiro kale oo dhaawac dalka Colombia waxa su'aalo la isweydiinayaa isla markaana dawladda waddankaasi Colombia ay weydiisatay dalkaasi Cuba in ay u soo gacan geliso hogaamiyaha ELN hogaamiyaha oo la sheegayo weerar ay ku qaadeen magaalada Bogotá xarunta waddankaasi Colombia inay ku dhinteen dad gaaraya ilaa iyo 20 qof tira inta ka badan ay ku dhaawacmeen weeraradani waxay imanayaan iyadoo madaxweynaha cusub ee dalkaasi Vian dhawaan uu loo doortay xilkaasi kadib markii madaxweynihii isaga ka sii horeeyay heshiis uu la galay kooxaha mucaaradka balse arrimahaasi ay socon waayeen iyadoo ay soconayaan shir ay leeyihiin wadamada carabta kaas oo ka soconaya gudaha magaalada Beirut ayaa la sheegaya wax heshiis oo muuqdo in ay ilaa imika la gaarin balse la sheegayo in laga wada hadlayo in markaasi la beeqaamiyo lana yareeyo arrimaha ku aadan isku dhaxgudubka dhinaca ganacsiga iyo xoojinta xiriirka dhinaca ganacsiga iyo waliba u gargaaridda dadka qaxootiga ah waa ahmiyadda ay leedahay dadka qaxootiga ah ee reer Syria u dhashay hase yeeshee arrimahaasi oo dhan ma noqonin kuwa guulo ku soo dhamaado iyadoo la sheegayo wadamo dhowr ah oo la filayay inay kaalin mugle ka qaadan doonaan oo ay ka qayb geli doonaan shirkaasi in ay ka qayb geli waayeen warkiina waa naga intaas